عبد الفتاح عثمان. سهام عبد الفتاح عثمان. ما غسنا أجرتان 18. حقيت دقنتها مدينة. مدينة كحقيت مع معانك. لول عبد العزيز محاس كتين واد ماشي ذي. ما حد كبرك فرق جمعي وقولب كدعاي جمعي كوري إن عيدي يرتي. أوكي تاريخ ده ما حسيتها جماعة 18. بشه بيش كوبد. سهام والو قارنا محكمة ظهرت هذا waxa u taagan tahay inaad xafiiska xalaalintu waxay ku soo gudbiyeen inaad tahay markhaatigaas oo ka marag furaya jimcahaas la sheegay inaad la joogtay luul cabdicasiis wixii lagu sheegay iyo wixii aad xogahood aad ka hayso ujeedkaas lagu dhaarinayo waxa waaye inaad run aad sheegto si loo gaaro cadaalad maxkamadda iyo dadweynahan iyo dhinacyaduba waxay waqtiga ku bixinayaan waxa waaye in kiiska cadaalad laga gaaro cadaalad la helo gabadhii dhimatay ay cadaalad hesho eedaysnaa maxkamadda hortaagan oo cadaalad helo sidaa darteed adiga oon cidna aan hiil u noqonaynin oo dhibanadii dhimatana aan hiil u noqonaynin eedaysnaana aan lid ku noqonaynin ilaahay wuxuu kugu og yahay oo lagu aad warqabto oo xogteeda hayso inaad maxkamadda la wadaagto marka sidaas la leeyahana waxa ujeedku uu yahay maadaama la wada dhimanayo cid aakhira kula tageysna aan jirin waxay adiga aad geysato hadalka aad sheegtana laga yaabo maxkamaddu inay go'aan ku qaadato go'aankaasna laga yaabo inuu saameyn kale ay ka dhalato in aad run aad sheegto ilaahay ka cabsato waxa aad sheegaysana ay noqoto wixii aad ogeeday oo lagu sheegay marka waa lagu dhaarinayaa siiqada dhaarta ku akhrina waad iga daba dhihi doontaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay ku dhaaranaya magaca ilaahay inaan sheegayo runta runta oo dhan aan sheegayo wax kalena aan sheegin run maahane intaas kadib xafiiska xalaalinta ayaa su'aalo toos ku weydiin doona kadibna waxaa su'aalo ku weydiin doona qareenka difaaca eedaysanaha kadibna maxkamadda ayaa su'aalo xilliga rabta ku weydiin karta marka xeelale maxkamaddu waa mahadsan tahay dabcan magacaaga iyo u sheegtay maxkamadda sihaam waxaad sheegtay in habeenada ka mid ay ku yeertay marxumaddu habeenkaas meeqa saac bay ahayd qiyaastii 3 saac ilaa 4 saac laakiin bacd المغرب ay soo wacday bacd المغرب ku soo wacday laakiin 3 saac ilaa 4 saac okay sihaam ما وتكتي مركب مرحومتها هبينك ها maxay kuu sheegtay markaa u tagtay guriga ugu tagay maxay ku dhahday guriga ma ku wada hadli karno waxa jooga Sayid Cali guriga ma ku wada hadli karno markay ku tiri meel kale aad ku wada hadasheen haday jirto maxkamadda u sheeg ha isbitaal macaani hortiisa okay maxay kuu sheegtay markaa maxkamadda waxa u sharaxdaa waxay kuu sheegtay markaas waxay ku dhahday waxa rabaa inaan wax ku sheego soo si sir ahaan igu sheegtay marka waxay ku dhahday waxa jira buuq haddii sayid guriga kuga arkani yani wuxuu dhahay wax ilmaha dhankooda ka socdo ma imaan karaan soo marka inuu khilaaf dhacaa laga yaabaa sababtaasi waa sababta aad banaanka ku soo aadeen saa maxkamaddu u sheegtay okay ayada wax la xiriira oo ay maxkamad ay kuu sheegtay ma jirtaa waa ka baqahay igu dhahday soo wuu ii gacan qaaday
sidee buu u gacan qaaday bal maxkamadda halkaa u sharax ilaa waqti dheer aa wada qaadateen wax war bay kuu sheegtay faahfaahin sii maxkamadda wuu ii gacan qaaday igu dhahday dhowr jeerna waa iskhilaafnay ani marka waxaa ku dhahay hadduu kuu gacan qaaday aabbaha la wadaag okay habeenkaa markaad dhammaysateen warbixintii ay ku siinaysay gurigaagi miyaa aaday mise meel kale aaday maxkamadda u sheeg may gurigeeda usoo laabanay gurigiina haddaa usoo laabateen maxaa dhacay maxkamadda u sharax guriga markaa usoo laabanay waxaa dhacday yacni in igu dhahday waqti dambe waay ma baxaysid joog annagoo qolka ku wada hadlayno uu soo galay isagani yaa soo galay maxkamadda u sheeg sayid cali hadduu idin soo galay muxuu idinku yidhi wuu qayliyey wuu buuqay marka wuxuu dhahay ma joogaysa sihaam waa inay baxdaa yaa baxaya buu yidhi sihaam waa inay baxdaa guriga ma joogayso kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhacday labadoodaa murmay soo waxay ku marmeen way joogaysaa iyo ma joogayso waqti dambe waay waa joogaysaa iyo ma joogayso markii lagu murmay maxaa dhacay boorse meesha taaluu soo tuuray ayada garabkaga dhacday intaa kadib maxaa dhacay soo buuqa markuu batay uu gacan qaaday boorsada soo tuuray marka ani waa baqay adeerkaya wacay wuu ii yimid kadib ani waa iska soo baxay ayada maku soo raacday marka mise waa kaa hartay ma ii soo raacin gurigay ku hartay okay habka gacan qaadka habka ficilkaasi u dhacay gacan qaadka ah sida uu u dhacay macnaa waa la dareemi karaa dagaalku xadka uu gaarsiisan yahay nooca dawtinimada miyaa ka muuqatay ma wuxuu maxkamadda waxa u sharaxdaa dagaalkaas iyo muranka dhex maray allahu naxariistay luul iyo sayid cali kadibna gacanka hadalka isu bedelay kadibna adigu aad guriga habeenka kaga tagtay maxkamadda hal mar ugu celi aada u caraysnaa soo markii boorsadu soo tuuray ani marka waa baqay waxaa ku dhahay waa baxaya ayada marka way la murantay ayagaa is hadal qaaday marka isaga zaa'id u caraysnaa si qof labadooda dagaal hore ka dhexeeya cam sayid cali markuu imanayey ma qol buu ka soo baxay ma banaanku ka yimi ma arkaysay meeshuu ka yimi maxkamadda u sharax qolkiisu ka soo baxay okay waa mahadsan tahay intaasaan kusoo koobaya sihaam waxaa su-aalo ku weydiinaya qareenka difaaca eedeysanaha marka su-aalo gudban xagga ujeeso xagga ujeeso sihaam waxaad sheegtay in lagu yiri guriga